السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بقي سلامي عندكم ميل كستا كجوتان هاي اللي هاي جمعة ونكسن جو وعن هذا كل سبتها كسدو قعمة فرن هني إلوبين سبسكرايب إنا لهذا لايك سارتو هوس فرين يوريكتو هني إلوبين أصحاب تالينا وسي درتب فيديو بان أد بقى ما سنتهاي ما أنت برنامج كين بحق سنة هاي آلة فيسبوك run ahaantii sanadooyin ka hor dadka ma aqoonin Facebook waa ku yaraayeen dadka aaday ugu yaraayeen intooda badan waxay isticmaali jireen Messenger waxay isticmaali jireen Skype waxay isticmaali jireen Yahoo qaarkood waxay isticmaali jireen Messenger aad uma badnayn dadka isticmaala Facebook laakiin sanadahan hadda la soo gaaray dadka ku soo badanayaan hataa maxaa arkay ciyaal yariis oo soo galayo inkastoo la ogoleen inay soo galaan oo la ogol yahay wixii ka sareeya 18 wixii ka sareeya inay soo galaan sharciyana ka yaalo laakiin way soo galooyaan dadka oo soo badanayaan ay ku isticmaalayaan da ayna jirin maxaa arkaysaa xataa dad oo da'dooda 40 kor u dhaafay oo sheedanaya 17 sheedanaya arkay oo sawir qof kale leeyahay oo dhalinyaro ah u saaran yahay taasoo jirto haddana maxaa jirto dad badan oo kugu soo darsanayo oo aad ku soo dhahayo soo codsanayo mana ku yaqaanaan aqoon kuma laha oo ku soo codsanayaan maxay sudaya inaa aqbasho markaa aqbashone in lagu salaamo ma ahayn oo asbaratiin qaarkood shibay dhahayaan qaarkood stress ku furan stresskaas oo ah siday ku soo gali lahaayeen waddamankan kale adaaba information ka raadinayaan ay ku weydiinayaan sida xaaladda tahay qaarkood xataa maxay ku weydiinayaan bisha meeqa qaadataa qaarkood ku weydiinayaan waa la yaab maxaa ku geeyey qofka waxay qaadato iyo waxa meesha dhigatay waxaas wax oo laga roon yahay waa qofka inaa weydiisid waxaa loo baahan yahay qofka haddaad soo codsatid inaad salaanto isbaratiin kabacdi markaas su-aalo weydiiy laakiin qofkii hadda soo codsaday su-aalaha weydiinaa ma soconayso taas waa laga diiday runtii dadka aaladda Facebook aad uma yaqaanaan habka loo isticmaalo iyo habka loo soo galo way iska soo galayaan qof kastaba internetka u furan way ciwaanay soo samaysanay way soo galay looma baahna marka hore maxaa fiican inaad fahanto Facebook muxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlaa muxuu kuu soo kordhin karaa su-aalo inaad is weydiisid waa marka hore su-aalo is weydii markaa soo furo laakiin adoon aqoon u lahayn aad soo gashid ma xumee otret marka hore inaad baratid waaye dadka sida loola dhaqmo sida dadka loo soo dhaweysto isdhexgalka bulshada inaad baratid waayo mooday ma aha inaad iska soo geshid oo ciwaan waa la samaystaa iska samaysa ay tahay walaahi wax badana oo aragnay oo qalalaad ah qaar badan sawiro maxaa u saaran oo aana jirin oo dad kale ah ama saaxiibayaashood ha ahaadaan ama qof ay iska saayaan ha ahaadaan sawir ay iska soo qaadanayaan oo qof dhalinyaro ah
ay soo saaranayaan. Adi maxaa u malaysaa qofkii inaa la hadlaysid? Ma aha, qof kale la hadloosaa. sawirka meesha saaran iyo qofka meesha ku jiro ma islaha, kala si ayay yihiin. marka jaahilnima u geysay intaas. maxaa ku dhihi lahaa, haddaad tahay Facebook isticmaale, isku dayin inaa qof kale ciwaanka adag ku gooniyahay, laakiin qof isku dayin inaad samaysato sawir qof kale leeyahay inaad soo qaadato. absolutely waa khalad inaad sawir kale soo dhigatid. sawirkaada fiican xumaatid, bara kuu taalo, meel ka fiiqnaaw, dhib ma laha. sawirkaada soo saaro, qofaa kaa heli karo. haddaad sawirkaada soo saaratid xitaa caadi waay, wax ceeb lama aha, wax dhib lama aha, waa soo saari kartaa sawirkaada, waa caadi. laakiin maxaa xun sawir kale oo qof leeyahay haddaad soo saarato oo sawirkaas aana ahayn. qofka hadday ku soo waco oo kaamirada kaa soo waco oo ku arkay inaana ahayn, oo ka amin baxa, waayo sawirka saaran iyo qofka mislaha. taasaa ku dhihi lahaa, sawirkaada soo saaro, bara kuu taalo, fiiqnaaw, si kale ahaw, waa caadi. jirkaan dhibaato way soo gaari kartaa, si ay wax kaa naqan karaan. wax oo saas u weyn maaha. maxaan ku dhihi lahaa, sawirkaada soo saaro. aadan ugu xumahay sida oo dabaalnimada ah, oo haddana jaahilnimada ah ula dhaqmaysid bulshada. taasna jaahilnima kuu geysay. marka maxaa ku dhihi lahaa, kawaatow, ka bax, sawirkaada soo saaro. haddaana awoodin maaho, shaashadda ha kuu ahaato, cad ha kuu ahaato, qof kale sawir oo leeyaha soo saaran, adiga ahaan ayna sharaf dhacay kuu tahay. waayo qofka aad sheedanaysid ma tihid. marka sawirkaada haddaad soo saari karin oo dhehaysid waa fool xumahay, si a wax iga yihiin, weji khabaabacaa ahay, haddaad isdhehaysid dhib ma laha, soo saaro. waraqada cad soo saaro, ama meesha dhan eberka dhig, wax oo dhib leh maaha. qofka ku soo wici kartaa, markaasi ku wadaagi kartaa waxaad tahay. marka iska dhaafaa ku dhihi lahaa, kuma fiicno inaad sawir kale soo saaratid. wallaahi aniga ahaan sawirkeedaa ii saarnaa, kaala arag. dadkan waa ila hadli jireen, waa sheekaysan jirnay. inkastoo ay jiraan dad badan sawir kale u saaran yahay, isku dayi jiray inaa wax fahansiiyo. intooda yar waa fahansiin jire, qaarkoodna dalay fariirsan jireen. adoo kale waay dadkaas. waxaa ku dhihi lahaa, kawaantow, sawir aad soo saaranaysid oo qof kale leeyahay. Facebook dadko dhana isticmaali karo, laakiin aa ku jirto. marka hore baro bulshada si loola dhaqmo, sida shoshaal loo noqdo, oo qof furfuran oo dad kasta fahmaya. marka hore noqo. laguma diidayo inaad isticmaasho aaladahan, dadkao dhan oo ka dhexeeya, waa official, waa isticmaali kartaa. laakiin iska dhaaf waxyaalaha sharaftaada meel uu dhacayo. sawirka soo saaran aan lahayn, intaasoo kula tali lahaa. waxaa kaloo wadaa
aniga run ahaantii mudda isticmaalayay waxyaalo badan oo la yaab leh oo ku arkay laakiin ma rabo inaan soo bandhigo. haddii aan soo bandhigani maro badan ayaa dhacayso, shaar badan ayaa siibmaayo, gurisman badan ayaa furmaayo, ewer waayo marka ka kaca waayo. waxaan ku dhihi lahaa sawirkaada soo saaro, foolxumo dhib ma leh. haddaa meel ka buusan tahay, haddee ilkaa baqsan tahay, haddii san aan la'dahay, dhib ma leh, sawirkaada soo saaro. dadaa ku taageerayo oo ku daawanayo oo dhahayo qofkan waaye oo ku darsanaa. xataa dad badana kuu soo darsanayo, dad badana ku darsan kartaa. matalan sawir kala matalan qof sawiraa soo saarat, dadaa ku darsatay, dadkaas ma kula tahay inay ku aqbalayaan? kuma aqbalayaan, waayo sawir kalaa kuu saaran. qof ajaanib ah oo leeyahay, qof oo Soomaali ah xataa ahaato, hadduu aqbala xataa oo kula hadlo oo ku soo waco, qofkaas inaan ahayn hadduu arko isla markii oo kaala naqana saaxiibtinimada oo kula saaxiibi lahaa. marka maxaa ku dhihi lahaa sawirkaada soo saaro,